أنتين أنو النبي يقول إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع من بعده أو ولد صالح يدعو له. qofku hadduu dhinto camalkiisu waa go'aya ilaa saddex arrimood mooyaane. wixii sadaqa uu la baxay waliba sadaqa jaariye ah, masaajid uu dhisay iyo ceel uu qoday iyo madaaris uu dhisay iyo maraakistan oo kale diinta islaamka lagu baranayo, qofkii dhisaa hadduu nool yahay iyo hadduu dhintay ajrigeedu waa u soconaya. waa midda labaad, ilmo wanaagsan qofkii ka taga oo u soo duceeya ilaahay subxaanahu wa tacaala, ilmahaas inta uu weliba cibaadaysanayo ducada kelima intuu quraan akhrinayo iyo intuu waxa weeye cilmi barayo, ajrigeedii ayaa u soconaya qofkii waalidkiisa ahaa. aw cilmin yuntafacu min bacdi, haddii uu qofku cilmi nashriyo, cilmiga marka nashrintiisa ama baridiisa dadka uu baray, imaa asagu inuu akhriyey oo dadkii u faa'iideeyey, wa imaa inuu u kaalmeeyo garab u noqday oo tashiilaadkii u fududeeyey wixii dadka wax lagu bari lahaa. labadaba waa noqon kartaa. haddaad marka garab istaagto oo aad dhaqaalo ku bixiso oo aad fikir ku bixiso oo dadaal aad geliso, cilmiga la bartay inta uu soconayo oo jiilba jiil sii barayo, ajrigeedii waa ku soconaya adigana. xadiidkaas waxaynu ka helaynaa saddexdii arrimoodba waxay ku jiraan goobtan maanta aan taagannahay oo diinta ilaahay lagu baranayo. haddaad dhismo ku darsato, ajrigeedu weligeedu waa ku soconaya. iska dhaaf dhismee kutubta aad u gabayso ee la akhrisanayo waa sadaqa jaariya. walad saalixa hadduu ka soo baxo waa kuu ducaynayaa, waxa weeye aakhiriya adduunba waad ku liibaanaysaa. cilmigaa lagu bartay ee haddana dadka lasii bari doonana intuu jiro, ajrigeedii baa kuu soconaya. marka wacdi maanan u istaagine, halkaa xadiis baan idin dareensiiyey oo goobtanaan maanta taagannahay ka tarjumaya. marka adigoo dhintay suu camalkaa